إنه مركا عالم كأنه قد عولنا وحلولنا هاي بس عالم وحنا كعصرنا فرجلنت الصومالي نقوته إيه نقطه واللي دي مويه أي ووعيالها تلاقي الدولة لماذا كوكي أنا بكمل تاي الصومالي مركا حلو قد بهني tallaabada ay qaadayso madaxweynuhu wuxuu ku dhaartay markii uu yimi sharciga ee uu xukunka la wareegay kitaab wuxuu gacanta ku saaray inuu birisaaf ku samaynayo dhammaan xuduudihii somalilan ilaalinayo oo uu isagu mas-uul ka yahay waa waajibaadka koobaad ee saaran madaxweynaha shacabka somalilanna waajibaad baa saaran waajibaadka saaran shacabka somalilanna waxa weeye inay difaac dhaqaale iyo difaac cudud mid walba kagala qayb galaan xukuumadda dadka markaa degan reer somalilan ee qaybna la qabsaday ee laascaanoo degan iyo inta iyagu degan ee ku raacsan inay dalkan u soo waariyaan kuwaasna waa khaayil waddan kuwa laascaanood ku nool ee iyagu soo kaxeeyey kama hadlayno kuwa shacabka inisanka ah ee somalilan ee laascaanood ku nool iyaga la qabsaday iyagu waxay u baahan yihiin in xukuumaddoodu furi garayso oo ay gacanta ula tagto dadkeeda la qabsaday ee ka saarto cadowga laakiin kuwa soo horkacay waa in hadda maxkamad lagu xukumaa maxkamadda somalilan markaa waxaa looga baahan yahay dowladdu inay dembiilayaashan horkacaya ee laascaanood jooga oo dhan ee ka soo jeeda somalilan inay halkooda ku xukunto oo la yidhaahdo waddankay tagaanna waa dembiilayaal magacyadoodana dhigto sawirradoodana baahiso kuwan ay la shaqaysanayaan ee soomaaliyana inaynu ka saarnaa loo baahan yahay waxaan kaga baxayaa hal qodob niyow waxa weeye marka koowaad dowladda somalilan laba saddex jeer ba imika hadashay labada saddexda jeerba nabad bay ku baaqaysaa imika u dambeeyaan ka hadlayaa wax nabad la yidhaahdo oo meeshan ka jirana ma jire e calamo iyo waxaan la garanayn baa waddankeennii laga taagoo laynoola yimi waxaa laga hadlaya waxa weeye ina yaroo magaranaysaayey fiqi la yidhaahdo oo ka soo jeeda meelaha dhulkiisii baad arkaysaa waxa ka socda oo leh somalilan iyo qabiil isaaq la yidhahdo iyo caynkan buu ka hadlayaa innagu markaa ciddii reera ka hadlaysa dan kama lihin innagu waxa la yidhahdaa dalka somalilan baa layna yidhaahdaa xuduudaynu leenahay xuduudeennuna waa cad yahay innagu qodobka quraynu u baahannahay waxa weeye inaynu tallaabo deg dega ka qaadno cudud militarina maanta cid inagagama awood badna geeskan africa mid dhaqaalana cid inagaga awood badan maanta ma jirto mid siyaasadeedna cid inagaga awood badan maanta ma jirto international communityguna cidda ay maanta ku kalsoon yihiin hadday tahay dowladnimo marka laga hadlayo iyo xagga waa somalilan ciidiyada dee waad aragteen wax ka soo baxaya iyo inay nimankaas aanay waxba jiraba ahayn marka inaynu ka cabanno maalin walba oo shacabkeennii miidiya lagu wareeriyo oo inta miidiya loo soo fadhiisto iyo la yidhaahdo dowlad baa laga dhisay halkan oo dabadeedna baarlamankeenii dhammaa ee dalkan ilaalinayay ay soo fadhiistaan oo iyaguna isku buuqbuuqaan dumarkii carruurta iyo shacabka reer somalilandna la damco in niyadjebin lagu sameeyo waxaas iyo responsibilityga waa dowladda weeye qodobkan kaga baxay waxa weeye dhibaatooyinkan la qaadno waa inaga gudaheena oo waa structural problems inagu somaliland aynu leenahay dalkeenu dowladnimadaynu dhisannay sida imika sacuudiga state nation statekeenu dhisannay waa mid imika aynu inagu leenahay ay tahay inaynu toosino midna waxa weeyaan waa threats waa khataro ama dibadaynaga imanaya halise dibadaynaga imanaya wey marka imika waxaanu ka hadlaynaa halisihii dibadaynaga imanayay ayaa gudii qaar inoo soo galeen halisahaasi markaa waxay noqonayaan qaar baa inaga inagu kooban dadkeena reer somaliland sheeganaya qaar baa soomaaliya ka imanaya qaar baa ka shisheeyo ilaa shiine ayay gaadhaysaayo ay ka imanaysaa waa kaa shiina hadlaya marka intaas oo dhan oo halisahoo ilaa halisaha dee waaweyn ee aynu ka shiina oo kale ka cabsanayno ama de ay sheegayaanba inay somaliland diidan yihiin jamhuuriyadda somaliland diidan yihiin inaynu horta dhammaanteedba dee ka warhayno weeyaan aynu ogaano wixii aynu kaga hortegayna iyo sida aynu halisaha isaga qabanaynayna aynu dad iyo dowladba ka wada tashanno taladuna dee waa tan imika halkan aynu kaga faalloonayno inaynu ku rogrogayno marka horta midna way iyadu waa arrinka lagama maarmaankaa in la isla garto somaliland qaran inay tahay
oo dee qarannimada somalilandna aynu wada ilaalino waxa weeyaan waa arrinka marka ugu horreysa qof waloo reer somaliland ama xukuumadda ku jiro ama dowladda ku jiro ama dadweynaha ha ahaado waa arrinkay tahay in arrinkaasi loo feejignaado oo xataa markay noqoto hadalka iyo ereyada iyo waxaasoo dhan aynu ka wada digtoonaano waxaa laynala soo hosgelayo laakiin professor eeg somaliland inay hesho exposure adduunyada in la baro waa in laga shaqeeyaa si joogta oo millions of dollars waliba inaynu ku bixinaaba ahayd waa arrin aad u wanaagsan oo trendingka aad sheegtay la geliyo si joogta consistently we have to educate the 7 or 8 billion people on earth Somaliland waxa ay tahay I totally agree waanan ku waaninaynay dowladihii kala dambeeyey laakiin baad jirta xogta qoran ee imika ama Bloomberg ku qoran ama meel kale ee uu qof akhriyaya adduunyada joogtay waa inay tahay tii saxda ahayd ee Somaliland waxa ay tahay sheegaysa hadday tii khaldanay tahay waa mashaakil aynu haddana doonanay cusub imika waaba halkaas waaba halkaa anigu halkan ka hadlaya maaha xogtaasi xog saxa waayo qaab laba kalmadood aan ku daro professor aan ku dhiibay haddaad aragto araarta uu samaynayo imika qoraaga waraysiga madaxweynaheena ka qaaday wuxuu ku qoray Somaliland waa gobol sheegay inuu ka breakaway Soomaaliya 91 imikana ah maamul hoosaad autonomous baa la isticmaalay maamul hoosaad ka mid ah Soomaaliya oo raadinaya dariiqii ku madax banaanaan lahaa baa looga dhigay araar inta markuu qofku akhriyo hadduu iska dhigo journal maxaad soo kororsan waa ka weey Siciidow hadalkan u socdaaba waa ka eg waxa weeyaan haddii aanay wax badan baa ka maqan qoladeennan imika xukuumadaha inoo haya sidan inagu aynu ugu dhiiranay ama arrinka aynu u soo saaray xataa dareenkii baa ka maqan inay waxaani sax yihiin oo ay tahay arrin markaad wax sharciya haysato oo xeer kuu bannaynayo inaad ku dhiirato oo aad mar walba ku celceliso weeye marka weli dareenkaasi kuma jiro qoladan waayo haddii ay ku jiro dee waxa odhan lahaa sidii maalintii qatar ay tageen ee uu madaxweyne uu hadlay wasiirka madaxtooyada Qatar kadib iyo imika markan ninkani uu sheegayay labada jeerba waxa weeyaan inay qoladeenu tidhaaho ciddii ay la joogto ama ra'iisul wasaaraha Qatar ha ahaado ama nin saxafi oo Maraykan ka yimid waar annagu waxaanu nahay dal la yidhaaho jamhuuriyadda Somaliland oo qaanuun madax bannaan oo qaanuun ku madax bannaan haddaad Soomaaliya maabkan weli dowladdiina iyo dowlado kale ay geliyaan shughul kuma lihin waana caddayntiina waa tan caddayntii inaanan shughul isku lahayn inuu